jinni buuran oo shuluq ah jinni fanax oo sale ilaa waxa dhigi jiray qofku inta muxuu kaga neefsadaa oo inta u soo dhiga maalin kasta in lee waa daabad xabadku wuxuu ku wataa xoolihii dumarka oo dhan xoolaha dumarka iska dhig daabad yahay suuliga see u gashaa maqaada hore u qaadata oo isaga dhaqda xaarka ilaa meeshaan gacan lama gaaray adoo daabada oo inta la eg baarata inaad qof u helisid kana soconay qofka soo arka lacag baa siinaynaaba surwaal lama xiran karo macmuus ka toban xiran kara 15 bilood buu ku dhashay waxaan waa cirka soo dhac qof lama oran karo dee see wax ka yihiin madaxa meesha ka yaaladay madubaaladba adoo saasa baarata inaad qofka dhigtid xiniya iska laalaadisid isku teetal bamadiin ayaan ku sheegay nin baa u garaabinaysa ma xiniyaha adoo banaanka iskeentid daabadu kala jir adoo daabada oo qarxi raba oo loo khulaato la qarxi raba baana nigu si dhigaysaa mana salfanaysa dhakhtar baa laba daq ma socon karo ninkan hadduu neefsado waa qarxaya guri fadhiid weeye fadhiid kala jir in gumeedka Karbash xalaal xaqiiqada jirta ka hadla waqooy koonfur abbo horan kugu sheegay wallahi video ka daranahaya walaal hadda uur leedahay ama 18 sano ka yar tahay please videoga ha daawanin xaqiiqatan sababtoo ah jidar cawarkii adduunkan wadnaa ilaahay baa kugu dhaari adoo indhahaas kugu yaalo ma qof ku dhigi jirtay inuu Karbash xalaal ku ciib qarinay laakiin next video kan ka xanuun badan oo soo wada asoo ka xanuun badan oo karkar ah waa soo ridaani dameer xalaala wax aqli leeyahay male bal labada isku fiiriya screen war hadaba screen ka soo qaaday adoo follow back yahay say u dhahdaa adoo ma xoolaa tahay waa observe iska gal awal aqli ma lahayn si daqsiga ugu neefsada wax aqli u leeyahay nin baa difaacaysa ina ku daba habaabid waa badan ah adiga asaga aan wadani mariya wado midda kale bal fiiriya isku fiiriya follow back ba tahay ma dhahdi walaalo follow back soo dheh oo ibridi waa ku siin lahay follow back bal fiiriya hadda screen waxaan sameeyay marri laakiin asaaska dilay oo waxa bilaaway marka wax sameey weeyay oo hadal ku socon waayay awal bahadal ma aqoon dumarka Soomaaliyeed dacaysh dhee ba wax bilaaway waa bloogtay waraanu cidna bloog xaashaan ana la blooga waa soo kalsoonahay waana iska dhalisay hubsad baan gashay hubuq baan kaaga siiyay hubuq baan kaaga siiyay runta ku sheegaya bal fiiriya bal Soomaaliyeed wartay miyax bloog qofka waa bahadilaanu bal isku fiiriya bal hadda screen ka soo qaaday asoo follow la waa ugu dawar imanaysan ka difaacisna buud baa khulu tumanaya Karbash xalaal xaqiiqada jirta ka hadla maadaama aan la doodayo ama aan Karbashayo mid hal illa waa ina hal il soo xiraa xaqiiqatan sababtaas ki ilayo ama xaawi ilay ama kaaniya qofka si u yaqaano niyaho balan waxa ku qaada maalinka oo giyaalka soo siibto in amaradan qaada hadda ka bacdi marka ku jafay kana soo saarna xaqiiqatan ilay way ku dhibaysaa ila laadahay baraad hadda intii wallahi wax iga maray xataa ma arko xaqiiqada jirta way Karbash xalaala another level qofka wajiga aamudid oo xaar ka soo jeedo afka day qof ka badac laga u qabtaa see wax ka yihiin maalintii wuxuu ka oranaya shanjar asagoo xigmada qaldan wata khamiiska deefaynuusta qofka fanaxada hoose aamudid diin laba mataana dhalay qofkaas iga difaaci ka dhaaniga oo kiyaalaha weyn xigmadaha qaldan wata aamudid waxar la soo furay difaacde mid kale fanax hoose leedahay asna fanax kale u leeyahay ma fanaxa soo jiitay macnaha waa adiga wajigu moodo dooro bahruud ku qaraxday mid kale labadiina waxa u egtiin abraha naagta u egtiin qaabka qofka okiyaalaha qaban wuxuu egyahay waxar oo ma ka dhiragtay maxaa u bedeli ka dhaa aqshay maxaa ka rab orde maxaa u sameynaysaa labadiina buud baan lagu tumanaya aniga yaani ka kicinlay waa kanay suu qosleed waxa ma qosol baa wajigeeda ka soo baxa wajiga wuxuu egyahay ka soo baxa caadiya xigmada caliya baan la soo aasaadnay barkaale wax ka bedel waayahay wajigaas leediina kaale maxay fanaxda kore isku dhaxmarisaan wajigeeda aamudid nabar futada ka soo baxay maxay tahay fanaxdan wajiga aamudid gus saxu in bay baxay baan la soo hortaagaysaa go'aan baratay oo macnaha inaad rag la kaftantid adoo dumarka gogorooda ku dhagan baa ogaan jirnay war adiga dumarka ku xisaabinaa been alla caaye oo ku bahdilayaanu tiim yaxbul dumarku waa sharafaan inaan dumar u jawaabnaa ma ahayn laakiin waa qof xun waxa tahay hilka urayso ana runta ku sheegay mid kale maxaa agshay waxa uu sheegay maxaa agshay maxaa ka galay maxaa soo qaadaysaa masoo ku dhaxmariya wajiga inta ku leeg waadiga fanaxda hoose leh fanaxda aan daamado iskooska dabka aaba ana fanax waxaan oran imaanaysaa masixro la tahay see wax ka yihiin oo ku bahdilayaano been alla cay wax sawiraya katabaan ba ku saaraya qof xun waxa tahay dumarka ku xisaabiyaan orgo gor soo xiro
inaan ku bahdilaan adaa isku keenay atiri cartutu kala jirin maxaa isaga qaadaysaa aniga intaan ku qabto 3 maalin 3 habeen baa guriga ku dhiganaya anu katibaan baa ku saaraya faarakuulo xaqiiqada jirtaa ka hadla boowaday maxaa balooga noo saartay xaqiiqada jirtaa ka hadla kuwa indhaha lahay aan wax u sheegayni Somaliland midowdaana leedin halka indhihiisa madaxiisa ku yaala midaysneenba eraygu nacib yaa ugu celcelinayna xaawo il cad ana ku jaajastay abrada midda kale waxay tahay 5 video soo sameysay hal video ka sameeyay oo inta ka baxday orto Karbash xalaala Karbashkiisin loo adkeysay kale taasa ku cadeynay sababtoo ah orba ka weyn ilmana aabahood adaa rabbiga rasaaska bariye ku raaxay sarinka Karbashka maqli jirta xawilaad isha kala furkaaniya xaawo il cad isha waqooyi bar u kala joogtaa hagaaji jirta ka hadla Zakriyemogiyo xikmadan ka qorayna maxay tahay maxamed agshay xikmadan ka qorayna waxay tahay hablihii Soomaaliyeed oo qalbiyadooda ilaalshay xaqiiqatan ani qofna ma dafiray agshay gabar Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed ah ayuu maalin walba garab taagan yahay bal ilaahay baa kugu dhaariyay xikmadan ka qorayna maxay tahay arboowe halka muxuu ah ma ka qorayna waxaas ma xikmad ba abuurista ilaahay wax baa ku sheegtay xaqiiqatan ilbaa la aadahay ilaymaan ku dhahnaa anigoo og inay dambi tahay xaqiiqatan waana ilaada qof kugu caysana ma jirto farsamada ilaahay fajac kula noqon baraad idrunta ku sheegtaa laaday qofka ilaahay uu misdiisa ka dhamaw qana fil darane qaab daran